Imin wanaagsan daawadayaal xilli kasto ay idin tahay soo dhawaada markan waxaan idin haynaa muuqaal cusub oo ka duwan muuqaaladii hore Niciimo Joker oo sheegtay in ilka casasi lama filaan uu u qiyaanay sababtu uu ku qiyaana maxay tahay gabadhan intaas iyo in ka badan ayaan idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal balse marka hore waxaan iiga codsanaynaa in muuqaalkan aad follow dhaadaan siina share gareysaan idinkoo leeg dhahaya si muuqaalku u gaaro saaxiibo badan haddii aan naga daawanayso dhinaca YouTube-na waxaan kugu xushmeynaynaa in janaalka subscribe dhaato gambaleelkana aad furato si ay kugu soo dhacaan muuqaaladan iyaguna halkaasi ku baahino waa hagaag Niciimo Joker oo caan ka ah baraha bulshada una dhaxda ilka casaqays ayaa afka furatay kadib markii ilka caso uu guursaday xaaskii cusub ee labaad waxa ay sheegtay Niciimo Joker in qiyaano weyn iyo daban aan laga furfuri karin loo dhigay waxa ay tiri iyadoo mar la hadlaysay mid ka mid ah YouTuberada ugu caansan ilka case waxa uu ahaa saaxiibkay waxa uu ahaa noloshiida hase yeeshee waxa uu ii qiyaanay si aan laga soo kaba karin meher ka dhacay dalka Jarmalka arooskii fantastiga ah ee cajiibka ah ay ka wada marxabeeyeen dad badan oo caan ah Niciimo Joker waxay ka eeday dibad joog sida la xaqiijiyay waxa ayna tilmaamtay in arrinka lagu sameeyo uu ahaa arrin weyn waa sidee hadalka u dhigtay Niciimo Joker oo aad moodo in markaasi xaalku uu ku xun yahay waxaana la dhihi karaa waxa xilligan wareerinaya shaqo dumar Niciimo oo caan ka ah aaladaha TikTok iyo sidoo kale social media intiisa kale waxa ay tilmaamtay in ilka caso uu yahay qof aan la isku halleey karin waxa ayna fariin digniina u dirtay xaaska cusub geesta kale xaaska cusub ee ilka casaqays oo aad moodo inay soo duubtay muuqaal aan ka fiirsasho lahayn ayaa waxa ay soo bandhigtay ilka caso oo isla socdo waxa ayna soo muuqata muuqaal ay sheegayso in dadku ay u haystaan arooska Brinken ilka caso oo arrintaas kaga jawaabay si jees ayaa sheegay in Soomaalida noloshiisa dhan ay Brinken ay u maleeyaan haddaba fanaaniin caan ah oo hablo u badan ayaa ka xumaaday falka lagula kacay Niciimo Joker oo ah in la guursaday in la isla guursadaahi ceeb maahan hase yeeshee Niciimo Joker waxa ku dhacay u arkeen wax lama filaana fanaaniinta caanka ee arrintaasi ka xumaatay ee hablaha waxa kamid ah Farxiyo Fiska oo dhawaan cunug saqiir soo jisay Farxiyo Kobayare Shaadi Sharaf Nadiira Neerus Najma Nashaad iyo kuwa kale oo badan haddaba daawade maxaa kula tali leedeen Niciimo Joker ma in ay iska sabarto masa in ay tilaabo qaado aragtidaada waa noo muhiim ee fikirkaaga dhinac kale ha u weecin waadna ku maasantiin dhammaantiin daawashada muuqaalkan ee noo share gareeya